1954 12 Oktoobar maanta oo kale waa markii ugu horeysay ee la soo bandhigay calankeena Jamhuuriyadda Soomaaliyeed ee baluuga ah xidigta cadna dhaxda ku leh waxaana calankeena baluuga ee Jamhuuriyadda Soomaaliyeed soo alifay Allaha u naxariistay marxuun Maxamed Cawaale Liibaan oo kamid ahaa golihii dhexe ee xisbigii Leegada iyadoona ay maanta ku beegan tahay sanad guuradii 60aad ee ka soo wareegtay markii Jamhuuriyaddeena Soomaaliya ay yeelatay calanka lagu aqoonsado jiritaanka ummadeed iyo kan dawladnimo haddaba shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankan isku taga Imaaraadka Carabta waxay hambalyo ku aadan maalinta qiimaha weyn ee 12 Oktoobar u direen guud ahaan ummadda Soomaaliyeed isla markaana ugu baaqay inay adkeeyaan jiritaanka midnimada shacabka Soomaaliyeed kana shaqeeyaan horumarka iyo nabadda hadaladoodiina waxaa ka mid ahaa waxaan leeyahay maalintii koowaad ee calanka Soomaaliya la fikradiisa la alifay oo calanka loo go'aanshay in xorriyadda Soomaaliya la qaado calankaana la sameeyo waxay ahayd 12 Oktoobar waa maalintii lagu guuleystay Soomaali isku raacday in ay calan qorax oo 5 xidigood leh ay sameysato waxaan ugu mahadcelinayaa nimankii muwaadiniinta Soomaaliyeed ee fakaray in ay calanka sameystaan buluuga ah ee calaamada dhaxda ku leh xidigta ee waadka ah sidoodii kale in ragga Soomaaliyeed ee maanta jooga ay ku daydaan dadnimadoodii iyo midnimadoodii iyo Soomaalinimadoodii ay xoojiyaan meel kasto oo caalamka kamid ah waxa daadsan Soomaali rag iyo dumar iyo dhalaan waxaanu leenahay Soomaalida Ilaahay ul iyo diirkeeda ka dhigo wadankoodii iyo dadnimadoodii iyo sharaftoodii iyo geesinimadoodii iyo mutacallimadoodii iyo maskaxdoodii wanaagsaneed Allah ku soo cisho maanta oo maalin lagu qaaliya waa maalintii astaanta calankeena waa maalin bashbasha iyo baraara waa maalin aad iyo aad nooga qaaliya waa maalin aan anagoo dhan aan xuseeno marka waxaan leenahay calanyo wiliga jir wiligaana jir insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxa weey waa maalin aad iyo aad qaali u ah agteena waa maalintii calanka Soomaaliyeed oo ah 12 bisha Oktoobar waxaan ummadda Soomaaliyeed u jeedinayaa hambalyo waxaan kale ummadda Soomaaliyeed u baaqayaa calankooda sidii ay maartay kor ugu qaadi lahayn kulligood dhamaantood inay ka wada shaqeeyaan waa mahadsantiin aqeeray ma sha Allah alxamdulillah waa maalin farxad leh maanta waa maalintii calankeena la hindisay 1954 Soomaalina hanolaato in allaale intii calanka taageersan bismillaahir rahmaanir rahiim magayga waxa la Maxamed Cabdiraxmaan waxaan ku noolahay sutaga Imaaraadka Carabta maanta waa maalin weyn waa maalintii 12 Oktoobar waa maalin ummadda Soomaaliyeed ku weyn waa maalintii adduunka aan ka mid noqonay oo ah 12 Oktoobar waa maalinta calanka astaantiisa la sameeyay ummadda Soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa guul iyo bashbash iyo barwaaqo iyo inay nabad ku waaraan insha Allah ta'ala aad iyo aad waxaan ugu hambalyeeynaa dadka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan iyo calanka Soomaaliyeed maalinta waa maalin aad iyo aad u qiimo iyo sharaf iyo farxad badan meel kasta oo dadka Soomaaliyeed joogaan aad iyo aad baan ugu hambalyeeynaa waxaan leeyahay walaalahayga Soomaaliyeed meel kasta oo ay adduunka kaga nool yihiin midnimada iyo qarannimada iyo walaaltinimada adkeeya qabiilka iyo qabyaaladda iyo qurunkana hala dhaafo waaxid hala noqdo kelimad keliyatan hala noqdo cadawgana hala iska dhiciyo waa maalin ugu weyn oo calan yeelanay oo Soomaaliyeed midnimada Soomaaliya ka shaqeeyaan وعلنكين التاجي همبلي على اسماء سومالك سمير جدا همبلي maanta waa maalin lagu qaaliya waa hambalyeena waxaan leenahay ummadda horumar iyo barwaaqo iyo bashbash iyo guul ayaan u rajaynaynaa Soomaali meel ay joogto ha isku dubnaato ayaan leenahay waxaan halkan uga hambalyeeynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed iyadoo ay tahay maalin weyn 12 Oktoobar maalinta qaranka Soomaaliya oo maalin aad u xusid mudan ah oo Soomaaliya calan yeelatay qaasaan calankeena aad ka quruxda badan dhexdana cadaanka ah geesahana buluuga ah iyadoo calaamada ugu quruxda badan uu ku jiro adduunka waxaan leeyahay hambalyo waa maalin weyn hala weyneeyo insha Allah qaranka Soomaaliya ha noolaado dukaankani waa dukaanka Soomaali Tagsan waana dukaan ku caana Soomaalinimada qaalina ah waxaan u hambalyeynayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay dal iyo dibadba joogto waa maalintii calankayagu la taagay waana ku faraxsanahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ummadda Soomaaliyeedna waxaan u rajaynayaa inay calankooda arkaan
oo niyadda ka arkaan oo qalbiga ka arkaan oo joojiyaan wixii jira ee kaleba dad israacay oo islaamana noqdaan calankoodana ayidaan ciidoodana ayidaan Cabduqaadir Axmed Sheekh warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Dubai.